xuutiyiinta Yemen oo ku dhawaaqay war cusub oo ku saabsan dagaalka Iiraan. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Yemen oo la safan Iiraan kuwaas oo weeraradoodii badda cas ay sababeen jahwareer weyn oo ku yimid maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ah intuu u socday dagaalka Gaza. Israa'iil oo beegsatay goob gantaalo oo ku taala Iiraan iyo qiimaha shidaalka oo kor u kacay. waxa uu hogaamiyihii hore ee Iiraan Cali Khamenei ku tilmaamay nin waalan, isagoo sidoo kale sheegay in Iiraan aysan doonayn inay la wareegto Israa'iil oo kaliya, balse ay doonayso bariga dhexe oo dhan. Todobaadkan Donald Trump ayaa sheegay in Maraykanka iyo Iiraan ay wadaan wadahadallo wanaagsan oo wax ku ool ah si dagaalka loo joojiyo, laakiin Iiraan si cad ay u beenisay. Mas'uuliyiinta Iiraanna waxay sheegeen in wax wada hadal ah aysan dhicin. afhayeen ka tirsan ciidamada Iiraan ayaa ku qoslay isagoo yiri Maraykanku isaga isla hadlaya. Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed ayaa adkeeyay baahida loo qabo in dhalinyarada Itoobiya lagu qalabeeyo tiknoolajiyadda si ay ula socdaan heerarka adduunka. Tiknoolajiyaddu waa mid ka mid ah tiirarka horumarka ee Itoobiya.